We have some news right now. Donald Trump's China visit is being overshadowed because of his remarks saying that he does not think about Americans' financial situation. taariikhda Mareykanka markii ugu horeysay ayaa waxa economiga ama GDP-ga ama dhaqaalaha Mareykanka markii la qiimeeyo ama celcelis waxay ka bateen markii ugu horeysay deynta Mareykanka lagu leeyahay ayaa 100% ama boqolkiiba boqol wax ka badan ay deynta Mareykanka uu qaatay ka badatay dhaqaalaha ama GDP-ga celceliska ama economiga Mareykanka ay ka badatay markii ugu horeysay lacagahan ayaa sidoo kale waxa la sheegay Donald Trump in uu musuqmaasuqay sidoo kale wasaaradihiisa kala duwan wasiiradiisa Pete Hegseth in sidoo kale macnaha ay sheegay waxyaabo extra macnaha ay sheegay extra ah ciidamada iyo waliba safaro aan loo baahnayn ay macnaha dalxiisyo ku tageen FBI-da Mareykanka fuweelin loogu sameeyay sidoo kale sidaas si lamid ah in uu kaga qayb galo overseas ama dibadaha ninka loo yaqaan Kash Patel in sidoo kale resourceski dawladda lagu bixinayo waxa soo lacag ah waxyaabaha ugu waaweyn oo sidoo kale aad ka macnaha loo tabahayo ayaa dhaqaalihii balaayiinta dollar ah ee ku baxay qolooyinkan ICE si loo bushkireeyo in ay sidoo kale Soomaalida Minneapolis ama Minnesota ay ku weeraraan macnaha mass deportation wixii loo yaqaan ay sidoo kale lacagihii ugu badnaa ku baxeen oo dawladda reserveska macnaha ay sheegay dawladda u yaalay waxa taasi ka sii daran dagaalka Iran oo sidoo kale maalinba maalin ka dambaysa qasaaraha Mareykanka oo hadda sii badanay 28 billion uu sii marahay aan counting wayna sii kordhaysaa tirada inta macnaha ay sheegay billion ee dolarka Mareykanka ah ee Mareykanka uga gubanayso dagaalkan Iran si dadban iyo si toos ah duqeymihii saacadihii ugu horeeyay sidaan ogeyd waxa macnaha la soo tabiyay ilaa iyo 11.5 billion dollars ama 11.3 billion oo dolarka Mareykanka 8 saacadood ugu horeysay kaliya inay Mareykanka uga gubatay sidoo kale Donald Trump qasaaraha ugu weyn maadaama uu soo wajahay sidoo kale national debt ee cirka marayso ay ka saramartay ama ka macnaha ay sheegay badatay GDP-gii ama dhaqaalihii dhanna ee Mareykanka uu arkay inuu san wax awooda meesha uu san ku haynin China uu u jabay Ruushka iska badaa warkooda sidoo kale sidaas la mid dagaalka Iran uu u taag waayay inuu xalliyo ama xal u raadiyo ayuu China u dhoofay asaga oo sidoo kale saacada ka hor China ka degay waxaana macnaha lagu soo dhaweeyay qaab diblomaasiyadda madaxweyne Mareykan ah oo maanta waxay ku tusaysaa bahdilka lagu sameeyay madaxweynaha China Xi Jinping umuusan iman airportka diyaaradda hoosteeda kuma uusan sugin waxa loo soo diray shaqaale hoosaad iyo wasiiro ayaa loo soo diray oo ku soo dhaweeyay garoonka ka soo qaaday Donald Trump soo galbiyay mana aha protocol loogu talagalay markii la fiiriyo madaxda caalamka maanta ugu sareyso China Ruushka sidoo kale Mareykanka markii la fiiriyo Ingiriiska wadamadaas Ingiriiska hadda waxba awood ama siilaan laakiin China iyo waliba Ruushka iyo Mareykanka waa wadamada adduunka maanta ugu quwadda badan ee la rabay in si respectful ay macnaha ishaga isku soo dhaweeyaan markii qofka kale uu booqanayo wadankiisa sida ogay sidoo kale bilooyin ka hor ama sanadkii hore waxa tagay Xi Jinping Mareykanka sidoo kale sidaas la mid ah waxa soo dhaweeyay madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden markaasi ahaa waxa tagay Putin ayaa sidoo kale tagay Alaska waxa soo dhaweeyay Donald Trump ayaa airportka ku sugayay laakiin China si ka duwan ay oo la dhaqantay maanta Donald Trump waxyaabahaasi oo dhan oo markuu China ka degay ciidina kuma soo dhaweyn taas waxay ku tusaysaa marka hoos u dhaca ku yimid ee diblomaasiyadeed sidoo kale hoos u dhaca dhaqaalaha Mareykanka iyo waliba inflationkii oo cirka marahayo lacagihii national debt-ka ah ama deynii Mareykanka lagu lahaa inay ka sarmareen lacagihii macnaha ay sheegay dhaqaalaha caadiga Mareykanka uu awoodda ku lahaa taasina ay sababayso marinka Hormuz oo xiran sidoo kale wadamadii Carabta oo sidoo kale laba talaabo dib uga dagahayo in ay ku iibsadaan ama qaarkood xataa OPEC ooga baxayaanba sidoo kale lacagaha petrodollar la propose gareeyay in petro yuan loo bedeli doono lacagaha lagu kala gato ilaa iyo haddana si qarsoodi ah ay u socdaan oo Iran ay isticmaalayso istiraatiijiyad nooc kale ah China ay soo dhaweysay maadaama China ay dan ugu jirto sidoo kale quwaddii adduunka maanta China ay ku soo ururayso sidoo kale sanado yar kadib ay noqon doonto caalamka iyo China hadda Mareykanka marka waxay danta ku qasabtay hadda inuu China hoos tago oo uu China booqdo Donald Trump oo macnaha seeban wax niraahna uu dhaho wax ka weydiiyo xaaladaha kacsan sidoo kale in uu macnaha dhaho Iran balse saba anagu waanu kari weynay oo macnaha ay sheegay sidoo kale wada hadallada sida anaga wax u rabnaa ayaga uma rabaan nuclear inay sii wataan bay rabaan anagana qodobadaasi waa ka horjeednaa waxyaabaha ugu waaweyn oo Mareykanka uu ka dagaalamahayana ay tahay sidoo kale
in uranium kan la bacrimiyay oo sidoo kale la hodmiyay ee hadda diyaarka ah ee kaliya u dhiman tahay in macnaha ay sheegay la hagaajiyo ee u diyaarsan Iran iyo waliba goobo kale oo xitaa macnaha laga shaki qabo xataa inay sameysteen qaybo kamid ah ayada oo sidoo kale China ay ka caawisay 100% iyo waliba Ruushka ay ka caawiyeen Iran afaarahaas nuclearka si macnaha bariga dhexe quwad maadaama Mareykanka quwadda bariga dhexe uu ku leeyahay ay tahay Israa'iil ayagana quwadan ay u ilaashanayaan Iran ah macnaha bariga dhexe ayagana ay isku ilaalinayaan sidaas lamid istiraatiijiyada noocaas ah ay isticmaalahayaan ayaa wuxuu rabaa in uu dhaho China Georgia macnaha caawinaysan ayaga oo la ogyahay Mareykanka in Israa'iil waxaasi oo dhan ayaga la soo dhiseen oo quwadda bariga dhexe ee Mareykanka uu ku faanana ay yihiin ayaga marka Donald Trump ayaa sidoo kale gudaha ayaa sidoo kale looga kacay qolooyinkii Republicaanka ah waxay leeyihiin hadalkii waxa la wareejinayaa shalay markii uu Donald Trump airportka ama Mareykanka uu aqalka cad helicopterta ka soo raacay hadalkii uu dhahay waxa ugu muhiimsan oo hadda aan China ugu socdo waxa weeye in Iran laga hor istaagay in ay nuclear sameysato ee ma aha dhaqaalaha Mareykanka iyo afaarahaas wax ku saabsan ma aha sidoo kale hadalkii ayaa aad macnaha loo wareejinayaa oo qolooyinkii Republicaanka ahaa waxay rabaan inay ogaadaan madaxweynahooda macnaha sheegay ninkan waxa si ka ah sidoo kale arintan ayaa waxay noqotay advertisement ama ad video ayay noqotay oo qolooyinkii dimuqraadiyiinta waxay u isticmaalayaan hab macnaha siyaasadeysan ama politics ay u isticmaalayaan si ay sidoo kale electionada soo socdo ee November bilaabanahay waliba kuwa xigo ee madaxtinimo ee 2028 si ay ugu ololeeyaan Donald Trump videogaas ama muuqaalkaas uu hadalladaas ku sheegay hadalladaas oo macnaha ka dhignaa anigu waxba macnaha hadda xoog ma saarahayo economiga iyo dhaqaalaha Mareykanka dadka say u survive-gareynayaan ama macnaha dhaqaalaha burburka ka jiro in sidoo kale dadkii aysan shidaalkii awoodin national debt-kii ama deyntii Mareykanka uu wadamada ka qaadanahay ee ka saramartay GDP-gii ama dhaqaalihii dhanaa ee Mareykanka maanta caalamka awoodda uu ku lahaa ay sidoo kale dhulka gashay Donald Trump maanta ay dantu ku qasabtay inuu China hoos galo oo uu China tago si ay macnaha ishagay wax uun ogala qabtaan fashilkan taagan oo macnaha ishagay uu China isku dhiibay afaara kale iyo waxyaabo kale ayaa macnaha qolooyinkan midigta fog ee cusuriyiinta conservative-ka ah ay faafinayaan ama media-hooda propaganda sida Fox News laakiin xaqiiqada jirto ayaa ah Donald Trump in fashilkaas la ajigeeyo inuu China ugu carray uu rabo inuu talooyin soo weydiisto sidoo kalena uu isku dhiibay China-na waxa ka go'an waxa weeye in quwadda bariga dhexe ee Iran ah ee macnaha ishagay hadiyo goor uu difaacayo in uu sidoo kale adkaysto bal wax yar aan idin dhageysiyo dhaqaalaha Mareykanka meeshuu marahayo dadkii shacabka ahaa oo qeyladaan sidoo kale isku daray telefishinadii oo wada buuqahay wada sawaxan ah Mareykanka waxa ka socdo. So it has just been revealed that Trump has exploded the national debt. It is the largest it has ever been in history. And I don't mean just the number. I mean, our national debt is now larger than the entire U.S. economy. The national debt is now larger than the U.S. economy. Exceeds 100% of GDP, going towards a record here. What risk does that pose? Well, no one knows, how big is the danger zone and when there's going to actually trigger some kind of a crisis. Well, it's not your imagination. Just about everything is getting more expensive. Inflation soaring 3.8% versus last year, the highest level of inflation in nearly 3 years. Prices also up for the second month in a row, in large part because of the war with Iran. And, it's... dhibaatada taagan ayaa sidoo kale ah dadkii low income-ka ahaa in lacagahan bilaayinta dollar ah ayaga ay bixinayaan ama laga qaadayo dadkii working class-ka ahaa ama dadaalahaya billionaire-radana loo dhaafay lacagaha ugu waaweyn oo Mareykanka depression-ka sidoo kale gelinayo ama dhaqaale burburka inta dhan iyo inflation-kana ay yihiin qolooyinkan businessyada ama billionaire-rada ah the likes of Elon Musk in ay macnaha lacagihii ugu badnaa ayaga laga cafiyay uu Mareykanka depression geliyay iyo waliba dhibaato weyn haddana aysan diyaar u ahayn inay garab qabtaan xilligan oo sidoo kale doorashooyin la aadahay dantoodana ay ka fushadeen Donald Trump ninkan doqonka ah macnaha dadkan businesska waan ku soo dhisnay macnaha ishagay nooc cafi taxiga oo hanaga qaadin intuu qaatay hadalkaasi Mareykanka daraadood u burburinaya haddii uu muuqaalku soo gaaro fikirkaadana la wadaag waana maasan tahay